bismillaahir raxmaanir raxiim kulan waxaan daawada ku soo dhawaada qodobada wararkooda ugu waaweyn anadihena waxaa ka mid ah wadahadalo farsamo ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo mucaaradka oo maalintii labaad shir ku yeelanaya muqdisho madaxweynihii hore ee puntland farole oo si adag u eedeeyay madaxweyne xasan sheekh maraykanka oo 3 maalmood oo xiriir ah duqeymo ka fuliyay soomaaliya oo martigelisay shir lagu dardargelinayo hirgelinta heshiiska isku socodka IGAD qodobadaas oo faahfaahsanaya wararkeena ku daawan doontaan balse saaxiib yaal waxay ka codsanayaan subscribe sartan channelka si aad u heshaan wararka iyo macluumaadka halkan aan soo gelino maasanidin dhammaantiinba aynu ku bilowno wadahadalada farsamo ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo mucaaradka ayaa galay maalintiisii labaad waxaa mar kale maanta magaalada muqdisho kulan ku yeelanaya gudiyada farsamo ee kala matalaya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo mucaaradka ka hor inta aan si rasmi u bilaaban wadahadalo kafool ah oo la doonayo in lagu xalliyo khilaafaadka siyaasadeed ee ka taagan hanaanka doorashooyinka ee dalka kulamadan oo shala bilowday ayaa waxaa garwadeen ka ah dowladda Turkiga iyadoo sidoo kale la xusayo dadaaladan inay qayb ka yihiin qorshe ballaaran oo ay ku lug leeyihiin wakiilada reer galbeedka si loo abuuro jawi ay labada dhinac ay ku kalsoonaadaan wadahadaladan cusub ayaa imaanaya kadib dadaalo diblomaasiyadeed oo hore lagu doonayay in lagu soo afjaro ismarwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka balse aan lagu guuleysan in dhinacyada is-afgarad rasmi ay gaaraan mucaaradku ku midaysan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa hore u diiday inay ka qayb galaan wadahadalo oo Turkigu si gaar ah u hogaaminayo iyagoo ku dooday in Ankara aysan ahayn dhexdhexaadii ay labada dhinac si isku mid ah u kalsoon yihiin wararka ayaa sheegay in dowladda Turkiga markan ay wada shaqeyn la sameynayso wakiilada reer galbeedka si loo dhiso hanaan dhexdhexaadnimo leh oo kor u qaada fursadaha lagu gaari karo heshiis siyaasadeed oo rasmi ah sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isagana qayb ka ah wadahadalada ka soconaya magaalada caasimadda ee Muqdisho dadaaladan ayaa qayb ka ah cadaadis iyo taageero caalami ah oo lagu doonayo in lagu xalliyo khilaafka ka taagan geedi socodka doorashooyinka ee Soomaaliya iyadoo laga cabsi qabo in haddii aan xal degdeg ah la helin uu sii xoogeysan karo khilaafaadka siyaasadeed ee xilligan ka jira dalka markana madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Farole ayaa si adag wuxuu u weeraray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna ku eedeeyay in xilligan uu dalka uu burburinayo sida isagu hadal ku dhigay waxa sidoo kale uu sheegay inay muhiim tahay in madaxweynaha Soomaaliya looga baahan yahay inuu ka shaqeeyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed isagoo sidoo kale weerar afka ah ku qaaday dowladda Turkiga wuxuuna ku eedeeyay in xilligan khalaas hor leh ay ka wado dalka dastuur beena oo aan maxduucaawa cid isu raacday jirin anaa ka mid ah ku jira baarlamaankii sare anaa ka mid ah wuxuu dastuur cusub wax bedelkiisa broseska loo marayna broses wuxuu ahaa jajuuba oo laaluusha ku dhex jiraan magaciisa dhammaystirkiisuna wuxuu ahaa haddii wax laga bedelayo in aakhirka u dambeeyo ay isu raacaan 3 meelood oo 2 meelood oo aqalka hoose ah golaha shacabka iyo 1 meel 2 meelood oo meel golaha senadka داني نيشيو دستور حسن هي كعبس الأردنية وقال يستيتني يحوجا وأنا لعب اللون ده بتاعه سومالي وقال لي الحين كوبه إذا كلمة أقل سنة وحيران لها صدني أفر بكوها ولا مذهب بين هلك اللي حاله كبيسة عربي سوسون غندور بعض مرت الدولة حمر شرعي كمجلته النجا حتى الشرعي dowladihii kale oo gobolada dhexena waqtigii waa ka dhacay koonfur galbeedna waa la jajooga dagaal sokeyaa ka socda diyaaradaha wax duqeynaya la sheegaya anugu runta cajiiba xaaladda sidaasa marka dadkeenu hayna maqlo waxaan leeyahay cid kasta ama nafli ku qabtay ama hunguri ka haysay ama siciidani la dirirsanayd oo la hadhow bedelaysa siciidani la bedeli maayo laba sano iyo bari inta la gaaro nin walibana ma doonan karo sidii hore ma noqonayso madaxweyne waxaa madaxweyne doonan kara nin dhulkaa wax ka qabtay oo ka shaqeeyey oo lagu yaqaan oo ku ammaano hal la ogaado nin walba anugu ma doonan maan dib u doonanaya anaa is hortaagayo la diriraya kaas dadka loo sheegay sitiin baa la ogol yahay nin walba inuu shaqaystaa la ogol yahay nin walba inuu darajadu rabo inuu ka gaalaa la ogol yahay halka fadhiya gacsataa baa ka buuxa xoolo badan le meeshaan nimanka halkaa fadhiya meeshaan adduunya ma jecla laakiin hadda ficilkoodan waa laga rabaa qarashku dhan iyagu la wareega intaas horta waa hordhacayay annagu haddii ilaahay idmo waxaanu qaadanaynaa 3 qodob oo ay la yimaadeen qoladii 13 gaalmood dilay baan qaadanaynaa as a base dowladdana waxaan faraynaa magaciisa halka meesha aanu wadno
ay qaybtooda ka soo qaateen tafaasiil ka bixin maayo hoos baan isugu sheegay ma garan xalka qaybtooda ka soo qaatay wixii dhammaan ay soo qaadeen iyagaa laga rabaa nimankii soo qaadaa laga rabaa haddeer ma kasii howlgala dhammaanadaa soo qaadeen inaga waxbaa ka qaada inaga waa idinkaan ammaanadda idinku dabayna idinkaa idinka sumayna ammaanadda waxaa soo kala qaadeen meesha hadda ka caddayn maayo laakiin waxaan u sheegaynaa ummadda reer Puntland iyo shacabkeena iyo Soomaaliya oo dhan meeshaan nabad baa lagu degan yahay nabad baan ka rabnaa ciddii xumaan soo wada hadda habaarna waa ka raayo xaq habaar waxbuu la helaya wixii bala soo wada isaga Allah ku dhasho taas waa habaar ducana waa noo tahay innagana wixii shida ina ku wada dhexdeena oo dowladnimadeena iyo systemkeena oo Soomaaliya nidaamka u dooranay federaalka in la isku raaco oo waxyeelay dastuurka 12 ah dastuurka 2012 ku cayaaray wixii meel kaga dhacay ilaahay jasadooda oo xun Allah tuso anu waa habaar iyo ducaynay wixii aqbalsan oo maanta ama naga maqnaan meel jigan oo Soomaaliya oo dhan ugu raacsana ilaahay khayrka ha waafajiyo ilaahay nabadda anna ku soo cesho ilaahay dalkeena baariso dowladaha shisheeye oo lugahayna kula jira waa badan yihiin wallo haysto in cadowgiina cadow noo hayn baa jira annagu dowladaha tariska noo ah cadow haysto haddii waxna taraan haddii waxna taraan laakiin waxna taraan baan ku haysanay toona ama Kenya ha ato ama Ethiopia ha ato ama Djibouti ha ato ama Yemen oo burbursan oo dadkayga jiro ha ato ama Cumaan ha ato ama khaliijkoo dhan ba hata kala reebay Imaaraadka intaasoo abaal baan haynaa reer galbeedka Amerikaan iyo reer Yurub abaalka ugu weyn baan haynaa inta iyo dariska marka laga reebo Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti oo dadkeena amaan dalay Yemen markii dadka xalay dhulkii ammaanka ku dhalo dadka wax ku soo bartay ka yimaadeen carruurahayga wax baray waxaanu ku gubaabinay dalkaas inay sidii ay u gacan qabanayeen ilaa oo si fiican gacan isku taago shuushu ka baxo ilaa ka haray kuwana soo dhex galay oo iyagu la khayraad dabiici ah soo saarayna khayraad dabiici ah nabadgeliyo baa kow haddayna nabadda nagala shaqeyn aad min jeclaysi wadaan oo nimaan xilkiisa dhamaaday aad rabtaan waxba inaad ku taageertaan oo maanta waanti aad ka wadeen hoteelka aad airboor ku leedihiin xumaan hataa ka shaqaysaan idinkoo dowlad islaam ah oo aanu idinka weynin oo taariikhdiina ku jira waxaad ogaataan colaadda aan harin wiilkii baan idin hayna namana muqonin kartaa si kasta taaysa noo muqonin kartaa weliba haddii annagu reer Puntland nahay noo muqonin kartaa markan Mareykanka ayaa bishan gudaheeda 3 maalmood oo xiriir ah oo duqeymo cirka waxay ka fuliyeen Soomaaliya iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sii wado ololihiisa duqeynta oo ay sii kordhayaan daliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ciidamadooda ay 5 July ee duqeymo ay ka fuliyeen deegaanka Jubba oo qiyaastii 46 meel waqooyi galbeed kaga beegan magaalada dekedda ee Kismaayo Africom ma bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan bartilmaameedka ama khasaaraha ka dhashay wararkaasi duqeyntan ayaa timid kadib markii Africom ay hore u sheegtay in weerar kale ay ku qaaday Al-Shabaab 3 ilaa 4 July waxaana ay sheegeen in halkaas ay ku dileen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab dhinaca kale ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in weerar dhawaan ka dhacay deegaanka Farsuule ay lagu dilay 15 xubnood oo ka tirsanaa maleeshiyada kooxda Al-Shabaab inkastoo Al-Shabaab ay sheegeen inay ka hortageen weerarkii ay dowladdu ay soo qaaday gudahaan daawadayaal wararka aad ka daawanayseen janaalka waa naga intaas amaan Allah